siyaasiyiintii ugu badnaa oo gaadhay magaalada Gaalkacayo iyo dhismaha maamul kale oo ka bilowday halkaasi maxaa ka dhalan kara saameyn noocee ayaysan yeelan kartaa maamulada isdiidan ee laga dhisayo Galmudug. siyaasiyiin u badan wasiiradii iyo baarlamaankii hore ee Galmudug ayaa maanta gaadhay magaalada Gaalkacayo ee xarunta gobolka Mudug, halkaasi oo ay sheegeen inay ku yeegleelayaan maamul aan ahayn kan dhismihiisu ka socda magaalada Dhuusamareeb. xubnaha gaadhay Gaalkacayo waxaa hogaaminaya wasiirka waxbarashada Galmudug Sheekh Ibraahim Guurey, sidoo kalena soo noqday gudoomiyihii saddexdii gole ee ururka Ahlusunna wal Jamaaca. Sheekh Ibraahim oo u waramay warbaahinta isagoo jooga magaalada Gaalkacayo ayaa sheegay in halkaasi ay ka bilaabayaan dhismaha maamul cusub, maadaama sida uu sheegay ay iyagu yihiin dadkii horey loogu igmaday hogaanka maamulka, isla markaasina ay hadda doonayaan inay Gaalkacayo ku qabtaan doorasho madax bannaan. Ibraahim Guurey ayaa sheegay in howlaha ka socda Dhuusamareeb ay yihiin kuwa aan loo dhannayn, sida uu sheegay ku kooban xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre, isagoo eedda ugu weyna ka dhigay in xukuumaddu ay bedeshay inta badan odayaashii saxda ahaa ee beelaha Galmudug. waxa uu sheegay in xubnaha baarlamaanka ee looga dhawaaqay Dhuusamareeb ay yihiin kuwa aan ku imanin saxiixii saxda ahaa ee odayaasha beelaha, isla markaasina ay cabasho uga timid odayaashii beelaha qaar, sidaasina ay u garwaaqsadeen in doorkoodii qaataan oo soo dhisaan maamul ay ku qanacsan yihiin beelaha Soomaaliyeed. xogta aan ka helayno magaalada Gaalkacayo waxay sheegaysaa in kulamo ay uga socdaan siyaasiyiin badan oo reer Galmudug ah, kuwaasoo ku midaysan ku qanacsanaan la'aanta dhismaha maamulka ee ka socda magaalada Dhuusamareeb, kaasi oo ay garwadeen ka tahay xukuumadda federaalku. sidoo kale Gaalkacayo waxaa ku sugan madaxweyne Xaaf oo horey u sheegay inaysan ogolaan doonin howlaha ay xukuumaddu ka wado magaalada Dhuusamareeb, isagoo kulan isugu yeedhay siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Galmudug si buu yidhi looga tashado dhismaha maamulka loo dhan yahay oo ay yeelato Galmudug.